madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo ka qayb galay shir madaxeedkii 28aad ee Jaamacadda Carabta ayaa la wadaagayay shirkani horumarka ka jira dalka iyo fursadaha caqabadeed ee hor yaalla dawladda Soomaaliya. mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa sheegay in dunida Carabta ay ka jiraan dhibaatooyin fara badan oo ay ugu horreyso amni xumo, jahwareer siyaasadeed iyo dhibaato dhaqaale. waxaanu ugu baaqay madaxda Carbeed inay u midoobaan sidii loo wajihi lahaa caqabadahaasi. waxaanu u baahannahay inay mideyno dalalkeena si looga gudbo caqabadaha hor yaalla. waa inaynu dardargelinaa sidii loo ilaalin lahaa mustaqbalka dadkeena. waxaanu ugu baaqinaa walaalaha ka dagaalamaya wadamada Iraaq, Suuriya, Liibiya iyo Yemen inay colaadaha joojiyaan. madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale ku sheegay khudbad qoraal ah oo loo qaybiyay wafuudda ka qaybgalaysa shirkan in dimuqraadiyaddu kaana qaaday Soomaaliya ay tilmaam wanaagsan u tahay horumarka iyo soo kabashada dalka. inkastoo ay jiraan dhibaatooyin hadheeyay dunida Carabta, haddana waxaan bishaaro idinka wadaa Soomaaliya oo bilowgii sanadkan ay ka dhaceen doorashooyin si nabadgelyo ku dhammaaday oo aan hore looga arag dimuqraadiyaddaasi dhammaan dalka Soomaaliya. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa kula taliyay walaalaha Carbeed ee dalalkoodu ay ka jiraan dagaalada inay cashir ka bartaan waayaha ay soo martay Soomaaliya, isagoo uu sheegay in lagaga gudbi karo khilaafyada hadheeyay ee ka jira dalalkooda inay tahay in ay wada xaajood iyo isu tanaasul. sidoo kale madaxweynaha ayaa qiray in weli Soomaaliya ay wajahayso caqabado waaweyn oo ay ka mid yihiin abaaraha dad iyo duunyo balaayay oo isku bedelay, oo ay wehelinayso amni xumo oo ay sababtay argagixisada caalamka ka jirta. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa yidhi argagixisadu waa khatarta ugu weyn ee Soomaaliya ka hortaagan horumarka iyo xasiloonida xilliyada ugu dambeeyay. waxaanu ugu baaqay caalamka oo idil in ay meel qura uga soo wada jeestaan la dagaalanka iyo cidhibtirka argagixisnimada. cabdirashiid cali barre, telefishinka caalamiga ee SABC, magaalada Hargeysa.